xildhibaan xuseen iidow oo ah mudane laga soo doorto galmudug kana mid ah dadka sida aadka ugu dhow ra'iisul wasaare xasan cali khayre dhanka siyaasadda iyo heybta ayaa hadalkan ka jeediyey fadhi golaha shacabka isugu yimid shalay maalinta ka horreysay dooda ka qayb qaatay xildhibaan saaxiibkeeya oo xilligii 18 bilood ugu horreeyay xukuumadda dawladda tan ka horreysay taliyaha nabad sugidda ah wuxuu ahaa taliyaha asagu taliyaha nabad sugidda ah halkan golaha shacabka la soo galay wuxuu ahaa asagoo taliyaha nabad sugidda ah ayaa maxkamadda qaranka maxkamadda garsoorka maxkamadda sare ee dalka ayaa la soo galay isagoo asagu taliyaha nabad sugidda ah ayaa madaxtooyadii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed la soo galay haddaba waa kuma qofka uu fashilka ku eedeynayo maxaa ka run ah hadalka xildhibaanka qofka taliyaha nisa soo noqday ee eedu ku socoto waa axmed macalin fiqi oo golaha kala tirsan ma saxba eedda loo jeedinayo maalin isniin ah maarso 25-keedii axmed macalin fiqi ayaa si shaaca isku casilay waana maalin ka hor marka uu istiqaaladiisa u gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan go'aansaday la tashi kadib inaan ka istiqaaloodo xilkii aan soo hayay muddadii 22 bilood ahayd ee la soo dhaafay kaasoo ahaa agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka anigoo istiqaaladaas u gudbiyay madaxweynaha shalay oo ay taariikhdu ahayd 24 maarso 2013 wararka lagu qaaday baarlamaanka ee xildhibaan xuseen mas'uuliyadiisa uu dusha ka saarayo axmed macalin fiqi waxa uu dhacay galab sabti ah taariikhduna ay ahayd 24 bishii May 2014 waxaan cadeymaha ka soo xiganaynaa website-ka BBC Somali iyo hiran.com xarakada al-shabaab waxa ay weerareen dhismaha maxkamadda gobolka Banaadir maalin axada taariikhduna ay ahayd 14 bishii Abriil sanadii 2013 waana mar uu xilka ka degay axmed macalin fiqi sidoo kale weerarkii madaxtooyada lagu qaaday waxa uu dhacay 21 Febraayo 2014 haddaba daawada xildhibaan xuseen ma saxan yahay mise waa qaldan yahay jawaabta adigan ku daayay